munaasabaddan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranku ayaa ahayd xuska maalinta caalamiga ah ee la tacaalidda iyo yareynta khatarta aafada waxaana halku dhigga sanadkani u ahaa xogta digniin bixinta aafada oo bulshada wada gaadha waxaana xaflad ballaaran oo loo qabtay ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada taliyaha ciidanka dabdamiska barasaabka gobolka Maroodijeeh mas'uuliyiinta hay'adaha ay wada shaqaynta ay leeyihiin hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'adda NADFOR ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka mudane Faysal Cali Sheekh Maxamed waxaana uu ka warramay xuska maalinta caalamiga ah ee aafada waynu runtii dhibaatooyinkani saameyn badan bay nolosheena runtii ay ku leeyihiin waqtiyo dheer baa runtii laga fikirayay in si isku mid ah caalamku uu waajaho qaabka dhibaatooyinkaasi dhacaya oo ay ka mid yihiin dhulgariirada oo ay ka mid yihiin duufaanada oo ay ka mid yihiin abaarahan joogtada noqday oo ay ka mid yihiin daadadkan joogtada ah iyo dababka oo iyaguna saameyn weyn runtii dunida iyo dalkeenaba runtii ku leh marka guud ahaan marka aad eegto sabja gaara ma ahaan jirin waqtiyadii hore laakiin maanta dunidii way soo jeesatay oo waxay noqotay subject facultiyada jaamacadaha lagu barto kamida disasterku inuu qayb weyn runtii u ka yahay oo haddii aan u diyaargarow adkaysi iyo u diyaargarow iyo recovery haddii aan intiiba la samaynin runtii dhibaato weyn ummadda nolosheeda runtii u geysanaya innaga qaran ahaan runtii mid baynu khibrad u lahayn oo waa dhinaca abaaraha oo inta diiwaan gashan runtii abaaro aad iyo aad u fara badan baa jiray dalkeenna ilaa waqtigii ingiriiskii hawdad iyo dunyaba runtii waxyeelay laakiin waqtiyadu waxay ku kala duwanaayeen dadkuna way ka koobnaayeen xilliyada maanta ay tirada dadku ay tahay cimiladan isbedeshayna waxa laga yaabaa 10 sano ama ka badan in mararka qaar abaaraha oo kale oo khibrad u leenahay inay u dhaxan jirtay laakiin maanta waxa laga yaabaa inaynaan foodabada ka qaadino maalin walba aynu ka hadlayno abaar iyo dhibaato aynu ka hadlayno iyo isuguur iyo biyo la'aan iyo cunno la'aan iyo dadkeenii runtii iyo magaalada runtii labadaba ay saameynayso marka abaaro fara badan baa runtii dalkeena ka dhacay duufaano ayna khibrad u lahayn baa ka dhacay oo afar duufaan baa afartii sanadood u dambeeyay runtii ayaa ka dhacay oo ay ka mid ahayd tii sagar ee xeebaha waqooyiga ka dhacday oo dadna uu ku dhintay xoolo fara badanna ay ku dhinteen wadooyin iskuulo haddii ilaahay midkeeda ku leeyahay MCH meelo fara badanna dhibaato ay naga soo gaadhay waxa ku xigay Tumbawaan la yiraahdo ay u bixiyeen waxa ku xigay Kayaar gaarti baa ku xigta 21kii ahayd oo iyaduna xoolo iyo gobolka Sanaag xeebihiisa runtii waxyeello ku geysatay abaaruhuna waynu ka warqabnaayo iminka labadii sanadood ee u dambeeyay kolka kuwii hore oo dhan laga tago roobabka aynu helay aad bay u xadidayn shukri xaaji Ismaaciil Baandare wasiirka wasaaradda deegaanka ayaa iyaduna dhankeeda ka warantay dhibaatooyinka keena abaaraha iyo xaalufka nabaad guurka sidoo uu ognahay cimiladu way isbedeshay hadday isbedeshayna maanta aafooyinka dhacaya sabab bay u tahay aafooyinka isbedelaya hadday sabab u tahayna marka la leeyahay cimiladu way isbedeshay cimiladu salka waxay ku haysaa deegaanka cimilada isbedeshay salka waxay ku haysaa deegaankuna waa kaynu munaafacaadsanayna inagu Somaliland khayraad aad iyo aad qiimo u leh baynu leenahay daldihin baynu ayaynu nahay khayraadkeenu waan ku celceliyaa bad iyo bari iyo buur iyo banaanba way yaala khayraadkeenu tii ugu dambeysay marka waxay ahayd taashidaalka ee maalintii dhaweyto aynu gidigeen ku soo wada naxnay ayay ahayd haddaba inagoo khayraadka ilaahay na siiyay saynu ilaashanaynaa ayaa meesha taala sidaynu ilaashanaynaa ay deegaankeeda ilaashana deegaankaas ilaahay siiyay ilaashana cimilada isbedeshay diyaargarowga looga baahan gudoomiye ku-xigeenka hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka Faysal Jaamac Xirsi Xawti ayaa ka warramay dadaalada xukuumaddu ay ku bixiso wacyigelinta iyo ka jawaabidda khataraha aafooyinka ee dhaca
maanta aafooyinka waxay la socdaan iskeedaba abuuritaanka iyo dabiga bini aadamka iyo deegaanka iyo dhulka la socdaan inta dadka iyo deegaanka iyo dhulku jiro aafadu way soconaysaa inna maca al-usri yusra dhibaato kasta ama wanaag kasta waxaa ka dambeeya cusri dhibaato kastana waxaa ka dambeeya yusri iyo fudayd marka waxaa loo baahan yahay adigu inaad ku xisaabtantid oo aad u diyaargarowdid dhibaatooyinka deegaankaaga iyo dalkaaga u badan sida halkan laga warramay waxay u badan yihiin laba qaybood mid darsamee ah iyo mid ilaahay keeno barasaabka gobolka Maroodijeex Maxamed Cilmi Axmed ayaa isna dhankiisa ka warramay waxaana uu fariin u diray shacabka Soomaaliland taasi oo ahayd in meel looga soo wada jeesto ilaalinta waxyaabaha keeni kara aafooyinka aad iyo aad aan waxa weeyaan hay'adda NAFOD ugu mahadcelinaya oo inta badan wax badan ka qabata xagga climate change ama isbeddelka cimilada iyadoo waxa weeye wasaaradda deegaankuna iyada lafteedu de wasaaradda waxay saaran tahay oo labadooda wada shaqeeyaan iyo wasaaradaha kaleba ee hawlaha involvement ku ah waxa weeye ugu mahadcelinaya qaabka wada shaqeynta fiican ee taliyaha ciidanka dabdamiska Axmed Maxamed Sawaaxili ayaa ka warramay saameynta uu ku yeeshay dabku suuqii Waaheen ee magaalada Hargeysa disasterku labo qaybsama waa mid ilaahay noo keenay oo dabeele iyo bulgariir iyo maxaa biyo nagu fatahay waxa oo inagu aan wax ka qaban karno wax si saawsiyar ee afooda kale ugu dara waxa weeyaan waa man made waxa ilaado waa wax inagu aynu aafada sameeyno weyn maxaa kamid ah imka ruwaadii aad arkaysan oo kale marka dhirta la jaro inaga afooyinka sameeynay oo substandard practice balayda waa practice xuna inagu aynu sameeynay hadhootona afooyin ugu imanayso xubno kamid ah mas'uuliyiinta hay'adaha caalamiga ah oo ka soo qayb galay munaasabadda xuska caalamiga ah ee aafada ayaa iyaguna ka warramay xuska maalintan hawsha weyn ee aafada waa hawl u baahan ka hortag intaanay dhicin waa hawl u baahan diyaargarow waa hawl u baahan in gurmadkeeda leh waa hawl u baahan kormeerkeeda iyo dabagalkeeda iyo qiimeynteeda waa hawl u baahan xogteeda in waqtiga loo baahan yahay in la helo Saciid Mira Giire gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isna dhankiisa ka warramay xuska maalinta aafada waxaan u jeedaa ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad hay'adda NAFOD gudoomiyaha Faysal Cali Sheekh uu iga weynaa 20 sano u dambeeyay anigu waan baan garanayaa oo marra qaranka ku soo shaqeeyo soo halgamay marra qalin ku soo shaqeeyo dumarkii dhigay saacadda ugu horeeyay ka helay wadanka markii dambe 2010 sano ka hor jaamacad ka wada qalin jabinayo hormuudka jaamacadda noo noqday intuu hay'adda ka shaqeynaya NAFOD anigu saafada ahaa waba sano baan xagga siyaasadda uu ku maqnaa 17 sano cimriga ka mid ah waxa ka mid ah labada saafada belediyada baadiyo waa wada maray iyadoo hoosta baa wada seexnay waxaana uga marakacaya inuu nin runtii qiyam leh oo baahida ka turjuma oo aan mas'uuliyadda qaarkood u tirada shaqayn jiray waxa yar jeclaysan jiray gobolka Madagaskar waxaan qirayaa Faysal inuu halka baahidu taalo xooga saari jiray oo runtii ku mahadnaqaya waxaan kaloo qirayaa baahida taalo in isaga ka weyn tahay waxaan leeyahay tala qaran laga yeesho qaran fayl ha yeesho qoyska ka bilaabano dadka laga wacyigeliyo runtii amaguna ka golaha waxaan rabaa ballan qaadno wixii shuruuca ee ku xiran aafooyinka iyo deegaanka ay uga baataan diyaar waxaan kaloo kula gudida hawlaha guud ee golaha wakiiladu ay wada daraasad sidii aan dadkii oo kala u dhicin meelaha suuqa gobolnimo meesha la yiraahdo state house-ka dhammaantood sidii loogu sameyn lahaa in loo sameeyo wixii tala soo jeedina xukuumadda ugu birino ka golaha diyaar baan u nahay shuruuc kastana waan soo dhaweynaa gabagabadii munaasabadaasina waxa halkaasi lagu soo bandhigay riwaayad wacyigelin ah oo ka turjumaysay sida ay bulshadu iskugu duubnaan karaan isla markaasina ay u samaysan karaan horumarinta wax soo saarka beeraha ilaalinta deegaanka iyo sidii bulshada ay u qabsan lahaayeen biyaha roobka Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa